golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulmay si looga wada hadlo dagaalka ka socda waddanka Suuriya gaar ahaan weerarada ugu dambeeyay ee ka dhanka ah mucaaradka gobolka Idlib ee waqooyiga dalkaasi Suuriya 3 milyan oo qof oo ku nool degmada Idlib ayaa halis weyn ugu jira in dhibaatooyin bini'aadanimo ay la kulmaan waa haddii dagaalku uu sii socdo safiirka waddankaasi Ruushka u fadhiya qaramada midoobay ninka lagu magacaabo Vasilin Nebensia ayaa sheegay in quwadaha reer galbeedku ay isku dayayaan inay ilaaliyaan kooxaha xagjirka ah ee fadhigoodu yahay Idlib waxaana Vasilin Nebensia hadalladiisii ka mid ahaa Unfortunately, Western capitals led by Washington seek to keep the regime of their nasiib darro quwadaha reer galbeedka ee ay horboodayso Washington waxa ay doonayaan inay ilaaliyaan nidaamkooda xagjirnimada waxa ay ku guuldareysteen inay caawimo ka geystaan kala qaybsanaanta dhanka kale danjiraha waddanka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo Nikki Haley ayaa ku eedeysay dawladda waddanka Suuriya inay si ula kac ah ula dagaalamaan dadka rayidka ah marka ay fulinayaan hawlgalladooda military waxaana Nikki Haley hadalladeedii ka mid ahaa First, they surround a civilian area. Next, they make the preposterous claim that everyone in the area is a terrorist. So every man, woman and child becomes a target. ugu horreyntii waxay isku wareejiyaan goobaha rayidka kadibna waxay sheegtaan in qof walba oo jooga aagga inuu yahay argagixiso sidaas darteed nin walba haween iyo carruurba ayaa noqonaya bartilmaameed u qaybsamaha qaramada midoobay ee waddankaasi Suuriya ninka lagu magacaabo Stefan de Mistura ayaa sheegay in ay jiraan in dhammaan qaybaha kala duwan ay yihiin kuwa lala yaabo oo aad u badan waa haddii dagaalku uu sii socdo dagaalka waddanka Suuriya ayaa waxa uu soconayaa muddo 7 sano hore ayaa madaxda Turkiga Iiraan iyo Ruushku ugu guuldareysteen in la isku waafaqo heshiis xabad joojina madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan ka Ruushka Vladimir Putin iyo kan Iiraan Xasan Rouhani ayaa kulankoodii magaalada Tehran ka soo saaray bayaan sheegaya in arrinka Suuriya aan lagu xallin karin hab military ah oo kaliya balse taa beddelkeeda lagu soo afjari karo hab wada hadal iyo wada xaajood ku salaysan laakiin xoogagga dawladda waddanka Suuriya iyo diyaaradaha dagaalka ee waddankaasi Ruushka ayaa weeraro cirka ah ka fuliyay gobolkaasi Idlib ee waqooyiga dalkaasi Suuriya hogaamiyaha waddanka Turkiga Mr Erdogan waxa uu sheegay in cabsi uu ka qabo xasuuq isaga oo intaasi ku daray in aan waddanka Turkiga aanu marti gelin doonin qaxoontiga ka soo qulqulaya xuduudaha ilaa hadda in ka badan 5 milyan ayaa la dilay 12 milyan ayaa ka cararay guryahooda taasoo ka dhigaysa waddanka Suuriya inuu yahay meel dhibaatada ugu weyn ee qaxoontigu ay ka jirto Saciid Ahmed Tamreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star